gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wixii injineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ku qaabilay saxafiga Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo maanta xorriyadiisii dib u helay kadib muddo ku dhow sanad iyo dheeraad. Wariye Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon ayaa sheegay inuu gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe ka qayb qaatay soo deyntiisa, waxaana uga mahadnaqay gudoomiyaha gacanta uu ka geystay in xorriyadiisii uu dib u helo. waxaan ku soo booqday gurigiisa magaalada Hargeysa gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe oo aan la joogo waxa booqashadeedu waxay ku salaysan tahay inaan u mahad celiyo warka muxuu la sheegay oo muxuu soo gaaray gudoomiyuhu wuxuu ka mid yahay ragay ka qayb qaatay waa ragay madaxweynaha u tagay arrinkan cafiska maanta madaxweynuhu يعني محوها سببتي سانكو صباحي أيو لي هاي runtii mahad celinta inaan u mahad celiyo gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo xiriir la lahaa yani ehelka xiriir la lahaa oo arrinkan muddo soo giraangirinayay maanta waxa weeye markii aan soo baxay runtii isaga fursad ismaan helin laakiin maanta waxa weeye ilaahay mahadi mar haddaan ku soo booqday gurigiisa nasiib wanaag maanta gudoomiyahana is helo oo intaan muuqaalkan bilaamina aan xoogaa wada sheekaysanana waxa weeye way dhacday intaasaan iga tahay gudoomiye jazakallahu khayr ilaahay khayr kugu abaal mariyo. dhanka kale gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. ilaahay ma hadlay ilaahay subhanahu wa ta'ala xuriyadii ku siiyay ma hadlay marka kale waxaan mahadnaqaynaa waxa madaxweynaha oo in baad imaka ilaa 3 biloodba aanu arintaada ka wada hadlaynay inuu maanta ilaahay waafajiyay ayaan u mahadnaqaynaa laana cadawga uu badan yahay waxa jira intaas oo kaliya loo keenayo oo dadkan saxaafaduna dadku waa soo dabada soo haystaano dad badan oo cadawga saxaafadda isku wanaagsan baa jira marka wuxuu sameeyay mataqaanaa geesinimada dastuurku siinay dastuurka sheegay siinay madaxweynuhu inuu afis leeyahay marka in saasan ugu jirnay dadaalka laakiin la qabanba in magaranaysaa Coldoon uu noqdo citizen wanaagsan oo dantiisa dalkiisa ka shaqeeya imka waxa weeyaan dhalinyartiina saatiin waxa leeyihiin mustaqbalkiina dalkiina ku xidhay laakiin ma dalkiina joogta tan inuu hagaajisana weeye maanta Soomaali shanta Soomaali meel maanta Soomaaliland ka nabadgeliyo wanaagsan wararka Djibouti waxa ka dhacaya xamar ma jirta Soomaaliya in inteen adkaysana weeye yani hadda Soomaaliland wax ku noqon weydid de Soomaali wax ku noqon maysid dalka wax ku noqon karta eelkaaga joog. Maxamed Jookar Cable TV Hargeysa. shirkadda Dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaarinaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit. sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab.